بسم الله الرحمن الرحيم. aan wax ka barano weydiinta ah what is an insurance company. inta aanan u gudbin qeexidda shirkadda bixisa adeega caymiska aan samayno erebixintan insurance and reinsurance. aan ku hormarno insurance waa marka shirkadda caymiska ay u adeegto macaamiisha iyo shirkadaha, balse reinsurance waa marka adeega caymiska la siiyo isla shirkaddii bixinaysay caymiska. haddaba shirkadda caymiska waxa ay ka mid tahay hay-adaha maaliyadda financial institutions, waxa ayna bixisaa adeega caymiska oo ay siiso shakhsiyaadka iyo shirkadaha ayadoo ka cayminaysa khasaaraha laga yaabo in uu qabsado mustaqbalka haddii la caddeeyana inay macaamiishaas siiso magdhow. shirkadda caymiska waxa ay kaalin weyn ka ciyaartaa maaraynta khasaarooyinka, taas oo awood u siisa shakhsiyaadka iyo shirkadaha in ay ku xawilaan khasaarahooda shirkadda caymiska, taa oo loo yaqaano risk transfer. waayo haddii uu khasaarihii laga caymiyey ku qabsado ama ku dhaco macaamiisha, shirkadda caymiska waxa ay siinaysaa magdhow, taas oo awood u siisa macaamiisha inay ka soo kabsadaan khasaarihii qabsaday si sahlan. magdhowguna waxa uu noqon karaa partial ama full, magdhow qayb ah ama magdhow dhammaystiran. mahadsanidin, waa inoo mar kale haddii rabbi idmo.